dadweynaha reer Jabuuti dalya dibad halkay joogaan aad baan horta inii salaamaya dhamaantiinba salaanka bacdi waxaan halkan ka hadlayaan maanta oo soo noqonaya sheekadii Fuad Yuusuf iyo sheekadii Deeqa labadaba halkan magaca ka hadlaya Fuad Yuusuf horta arrinkiisa iyo xaalkiisa maanta xoog buu culus yahay reer Jabuuti Fuad arrinkiisa xoog buu culus yahay maanta gabood baan tagay isliin bay hayd isliin iyo khamiis baa leeyo ogoliyay inaan la kulmo maanta isniintii waxaan tagay gabood haddaan gabood tagay waxaan la soo kulmay Fuad Yuusuf haddaan la soo kulmay Fuad Yuusuf waxaan tagay markii ahaan dhakhtarka gabood gudaha ku yaala dhexdiisa laga keenay oo xaaladiisu xoog culus tahay jirkiisii oo gabigiisba wada bislaaday isagoo wadnihii oo kacay aawadi loo geeyay dhakhtarka gabood ku yaala wadnaha ayaa xoog u kacay xoog bayna naftiisu khalaas u ahay wuxuuna wadnahu u kacay halkii markii hore lagu riday kaniif ay ahayd laakiin halkan imka lagu riday ma taqaaniin waa frigo marka khudradda bislaan wada halkee la geliyaa frigo baa la geliyaa isla sidoo khudrad yahay frigo ku xidhan ilaahay frigo ku xidhan frigo bay geliyeen frigogii ayaa maxay haday aawadi baa wadna xanuunka ugu wacan wadnihii baa xanuunaya erlashiigii baa wadnaha gaadhay cidi wali xilligaas dhakhtar meydii dhakhtar cid xilligaa dibadu ma saarno dhakhtar meydii waxa weeyaan doktoradii hudaa u timidana waxay caddaysay inuuna Fuad Yuusuf uuna ku noolaan karin meeshan kulub laakiin se ka horeeyay ila looraaba ka horeeyo la keenay oo been sheegaya oo inuu ku noolaan kara kuleelka oo warqadaa keenay inuu Fuad kuleelka ku noolaan karo waxa weeyaan afar tutuug iyo afar takhaayil ee isla shaqaysanaysa sheegaya waar dubkiisu ninka kuleel ma qaadi karay toosiyada wadnihiisu kor buu kacaya waar inuu dhintayna ugu talagaleen yaa wax dila dalagisa allah qofurxiinka wala dhaafsan yahayba dadkan waa dad qofurxiinka dhaafsan oo ilaahay ilaaway oo iyagu cidla iska qanciyo cidla iska cajabiyo waa ragga is cajabiyay baan sheegaya ee dawladda ka tirsan waa is cajabiseene cajabisaas ma soconayso cajabisaasi tu soconaysa maaha sida ugu dhaqsiyaha badan in ninka meesha lagaga saaro weeye haddaynan dil u diyaar garoobin oo qorshihiinu dil u nahayna ninka dishiin waxba aamusa lama aamusayo wax lagu aamusa maayna annagu waxaan ku aamusaana ma mahayaba maxaan ku aamusa waxa ku aamusa mahayo waa qorshe waxaad samaynaysiin dil la idhaahdo dilkiina ragga hore aad ugu soo hadlayseena waa frigooyada ku xaraynaysiin frigo ayaad ragga gelinaysiin ilaahay frigo ini geliye calaamad degdegaan ilaahay ni baryana inuu ilaahay niga muujiyo madaxweynaha dalkaa sheegaya ee wadana shisheeye ugu baaqaya inuu heshiisiiyo intaana horta dal shisheeye madaxweyne aanad heshiisiin oona soo fadhiisin laba nin oo dalkaaga ku nool Fuad Yuusuf caliyo wiib ayay arrinkoogu madaxaaga saaran taa maxaad u fulin weyday dal shisheeye aad u yeedhaysaa madaxweyne dal shisheeye aad u yeedhaysaa dalkaagiibu olol iyo qarax ka taagan yahay dalkaagiiba dadka frigooya lagu gurayaa oo lagu xaraynaya frigo mudana madaxweyne waxyaalahaasoo dhan adu inaad ka daasoon tahay iyo in codkaaga ku soo gaadhiyan kale ay dhowno wallahi ma garan karay laakiinse waxaan kuu sheegayaa dal shisheeye intaanad heshiisiin kuwa dalkaaga ku nool horta hoos u eego iyaga cadaaladda xaqa ah u kala qaad iyaga markaad Fuad iyo wiib cadaaladda xaqa u kala qaadid ee xaadka runta ah aad martid aad dal shisheeye heshiisiin taa horta xoog baan uga xumahay intaad baaqaa dal shisheeye u diranaysid kuwaad arrinkooga horta dhammaynahay waxaana balana Fuad Yuusuf cali sida ugu dhaqsiyaha badan leh haddii xaalkiisa caafimaad loo eegi waayo maanta Fuad Yuusuf cali heer wuxuu gaadhay oon inii sheegaya war walaalahayow geedka hoostiisuna fadhiisto war geedka iga soo horjeeda buu yidhi hoostiisaa fadhiisto meesha kuleelkeega ma karaya maya baa lagu jawaabay laguma ogola baa lagu jawaabay amarkuna kama socdo ragga gabood haystee masaakiinta ah waxba ma gooyaan kuwaas waa rag masaakiin oo yagba dulmi cadaalad darro lagu haysto amarku dusha saru ka socdaa in Fuad frigooga la geliyo
adiga kaa socda aduu kaa socda ninka idhi geedka hoostiisa fadhiisto ee loo diida geedka hoostiisa maxaa lala rabaa inuu dhintaa la rabaade yaa dila laakiinse ummadda ilaahay baa dilad shicibooynaha reer jabuuti war wax inoo maqan ma jirtaan ileeyahay maanta fu'aad baa ku jira deeqaa ku jirta beriyaa geli doona innagaa geli doona qof kastaba albaabka aqalkiisa in la soo qaraacayo shaki kama joogaan in ileeyahay deeqateedan ka hadlaya deeq waa hooyo sharaf leh hooyadii sharafta lahayd inta aqalkeega si cadaaladdaraa looga soo qaatay ayaa weli allaanag la haysta war waxaan in ilaahay reer jabuutiyow dadkiinu iniga inay dhimanayaane kaco ka hadlaan in ileeyahay kaco oo ka hadlaan in ileeyahay waa ninkii dhiigla kacbaan leeyahay halla kacaan leeyahay halla hadlaan leeyahay cadaaladda xaqa aynu hadalnaan leeyahay madaxweynow intaana dadka la heshiisiin dadkaaga horta hoos u eg dadkaaga iyo dalkaaga rogmanaya horta hoos u eg fu'aadna waa kaad aakhiro ku tagayseen waa kii ini xujeeye weyn alluu inigu xujeeye alluu inii dhiibay qof alla taageersanna oo alla hoos joogana cidna waxba kama qaadi karto cid wax ka qaadi karta qof alla tiirkiisa haysta cid wax ka qaadi kartaa ma jirto laakiinse dalkaaga hoos u eg baa ku leeyahay shicibka reer jabuutooma indhihiinu maqsinadiina yay ku wada jirine aqalkiina hortiisa ha u soo baxaan indhihiina maqsinadayana indhihiina ku furnaan dibadda indhihiina oo ku furnaadaan dad aqooyahanaan leenahay dad cilmilaan leenahay dad tacliin labaan leenahay war waxay naga dhiman ma jirtaa inay leeyahay dib yaynan isku celin hoosna isku riixin boqol fu'aad iyo boqol deeqa maanta jabuuti gudahaaga ku nool anigu taabaan inigaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullah